gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa gaarsiiyay deeq raashin ah kun qoys oo barakacayaasha iyo sidoo kale danyarta beel kamid ah beelaha dega gobolka Togdheer deeqdani oo qayb ka ah ballanqaad uu madaxweynaha Soomaaliland u sameeyay safarkiisa gobolka Togdheer 2,000 oo qoys oo kamid ah beelahani ayaa gudoomiyaha gobolka Togdheer ku wareejiyay madax dhaqameedka iyo sidoo kale odayaasha beeshani madaxweynuhu Xuseen Naxariis leh uga jawaabay codsigaas isaga oo ballan qaaday inuu 2,000 oo qoys raashin ah 2 bilood kala siin doono maanta halkan waxaan ku wareejinayaa 1,000 qoys ee bisha December loogu talagalay in la siiyo beelaha soo ka kooban 4 madax sida ay u soo qaybsadeenna qoraal loogu soo gudbiyay boqaashooda iyo salaadiintooduba runtii waan uga mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland naxariista uu u fidiyay dadkiisa waxaan beeshana ka codsanayaa in sidaas si lamid ah idinkuna aad gaarsiisaan dadkii nuglaa ee beesha kamid ahaa ee aad madaxweynaha uga codsateen inuu wax soo siiyo oo aanay ka soo noqonin wax cabasho ah geesta kale waxa iyaguna wareejinta deeqdani ka hadlay madax dhaqameedka iyo odayaasha deeqdani u gudoomay dadkani barakacayaasha iyo danyarta isugu jira marka labaad mahad waxa iska leh guddiga gobolka gudoomiyaha gobolka iyo hawlwadeennadiisa aad iyo aad ayay hawsha horta uga howlgaleen madaxweynuhu noo magacaabay ee uu nagu reebay waanu la siiyey bishii u horreysay kunkeedii wuuna guddoonsiiyey annaguna waxaanu rajaynaynaa madaxweyne aad iyo aad baanu kugu ducaynay beelihii oo dhan waa kuu ducaynay garabkaaga allaha galo ayaanu leenahay aad iyo aad baad noogu kaalmaysay codsigayagii waana kaa gudoominay waana kugu mahadnaqin annaka oo 4 beelood ah oo Tumaalo Madhibaan Muuse iyo Beeshii Ibrood inta baan iskugu jirno aad iyo aad ayaanu ilaahay baa horta mahadle aad iyo aadna waanu kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee aad noogu ballan qaaday ee aad noogana ajiibtay aanuna helay wixii aad noogu ballan qaaday gudoomiyaha gobolka Togdheer aad iyo aad buu u mahadsan yahay shaqa kuma yarayn hawli kuma yarayn isaga iyo hawlwadeenadeeda oo uu ka mid yahay xoghayihiisu fulinta dhammaan maamulka gobolka aad nagu ballamisay si sharaf leh iyo milge iyo karaama leh ay nagu wareejiyeen raashinkii aan ku deeqda madaxweynaha 4 beelood anagoo isku duuban waxa la yiri qofka aan u mahadnaqin dadka ilaahay u mahadnaqalay mahad ilaahay baa iskale marka hore marka labaad madaxweynaha waxaanu mahad ballaaran uga celinaynaa deeqda ballaaran ee dadka baahan ee dadkiisa madaxweynaha uu yahay uu soo gaarsiiyay deeqdani ayaa qayb ka noqonaysa ballanqaad uu madaxweyne Muuse Biixi u sameeyay dadkani tabalaysan ee beeshani ka soo jeeda waa fahmi kaysa xirsi bulsha TV Burco.